xubnaha golaha deegaanka xogayaha dowladda hoose taliyaha saldhigga nabadoonnada degmada Buurtinle iyo dhammaan xuqaasha iyo xagaradka reer Buurtinle oo goobtan ku sugan salaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh salaanka dibilaa baa maad iska leh caawa taariikhdu tahay 3 bishii koowaad 2023 waxaa noo qabsoomay kulan wada tashi maamulka degmada iyo nabadoonnada degmada Buurtinle kulankaas oo ujeedkiisu ahaa isxog waraysi iyo sidoo kale u diyaar garowga geedi socodka doorashooyinka dowladda Puntland shirkaani ujeedkiisii ajandihiisu wuxuu ahaa kow in amniga iyo nabadgelyada degmada Buurtinle laga wada shaqeeyo ay noqoto priority number 1 qodobka labaad oo shirkaan wuxuu ahaa in si mug iyo miisaan leh loogu diyaar garoobo diiwaangelinta 7 bisha degmada Buurtinle iyo guud ahaan gobolka Nugaal ka qabsoomasha insha Allah hadii la yiraahdo dhammaan odayaasha waxgaradka maamulka degmada uqaasha waxay isla qaateen in amniga la xoojiyo sidaas si la mid ah doorashooyinka ama diiwaangelinta nagu soo foodleh oo muddada asbuuca ka dhiman aan rajaynaa in noogu timaado insha Allah waxa rajaynaa insha Allah hadii la yiraahdo in doorashooyinkaas si mugla loo qaato fariinta caawa halka naga dirayo waa fariin ku socota shacab weynaha reer Buurtinle miyi iyo magaalo waa fariin ku socota gobolka Nugaal degmadani waa degmo ka tirsan gobolka Nugaal waxaan rabnaa in aanu bulshada gobolka iyo kan degmadaba caawa aanu dhahno Buurtinle waa diyaar waana u diyaar garoobaysaa waana galaysaa diiwaangelinta Puntland sidoo kale gobolka Nugaal anagu ku hadlayna afka gobolka Nugaal in aanu fariintaan dirana ay tahay gobolka Nugaal waa u diyaarsan yahay diiwaangelinta dowladda Puntland insha Allah si khaas ah waxaan rabaa in aan u iraahdo shacabka reer Buurtinle miyi magaalo in loo diyaar garoobo la soo dhaweeyo qof walba oo buuxiyay shuruudaha diiwaangelinta inuu insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo meeshiisa iyo meesha uu joogo iyo seejada ugu dhow oo la imaanayo inuu insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo iska diiwaangeliyo balanteena waxa weeye midnimo iyo wada jir waxaan horumar ku gaari karnaa anagoo taladeenu midaysan tahay waxaan horumar ku gaari karnaa anagoo talada dib ugu celina shacabka oo shacabku aayahooda iyo mustaqbalkooda iyo meeshay u socdaan iyo masiirkooda ay ka tashadaan aad iyo aad baan runtii madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani uga mahadcelinayna sida quruxda badan ay uga go'an tahay in dalkaani taladiisa dib loogu cesho shacabka sidoo kale waxaan halkaan uga mahadcelinaynaa guddiga doorashooyinka Tibak oo runtii shaqo baaxad la soo qabtay mid kalena hadda bilaabaya insha Allah waxaan rajaynayaa in Ilaahay u fududeeyo shaqooyinkaas guud ee Puntland u hayaan. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.